Haddii ay timahaada soo jajabayaan ama ay hoos ka soo siibanayaan ama ay kuu bixi waayeen oo ay kuu dhadheeraan waayeen, alaab waxaan kuu hayaa maasha Allah tabaarakallah, wax badan aad ka faa'iidi doonto, wax yar oo basiidana aad ka samaysan karto. Alaabtan waxa ay kaa caawinaysaa timahaadu in ay jajabka, agoolka, aflaaqadaha iyo in ay kuu dheeraadaan timahaada ay kuu baxaan oo ay dhabarka kuu dhaafaan. Fadlan nala daawo muuqaalka oo noo soo sheer garay. Bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabtayda qaaliga. Waa mar kale iyo muuqaal kale cusub. Fadlan fiidiyowga noo sheer garay oo noo like garay. Insha Allah hadda waxaan bilaabanaynaa ama aan gudagalaynaa alaabteena yareed ee faa'iidada badneed ayaan hagaajisanaynaa. Idinkana waxaan rajaynayaa inay igala faa'iidaysan doontaan muuqaalka oo sii sheer garay doontaan, sii like garay doontaan. Halka waxaa ii yaala weel sida ujeedeen waxaan kusoo shubay hal qaado oo xulbad ah, xulbadda miraha ah. Qof walbaana wuu yaqaanaa sidaa rajaynaya. Haddii aadan aqoonin waa taa. Waxaan kaloo kusoo darsanayaa waa hal qaado oo xabad sawda. Xabad sawdada oo miraha ah waa iyadana waa hal qaado. Waad fahanteen aan rajaynayaa. Waxa kaloo aan kusoo darsanayaa waxa ay tahay hal qaado oo iyadana ah miraha dhagayaraha. Dhagayara qof walba wuu yaqaanaa, waa kaasa iyadana hal qaado oo iyadana ah dhagayare. Saddexdan shay ayaan ka sameynaynaa alaab inaba aan caadi ahayn, faa'iido fara badanna timahaada u leh. Waxaan kusoo daray 2 galaas oo biyo ah ayaan kusoo daray. Marka 2 adiga ayay ku qusaysaa. Waxa aad samayn kartaa in aad dabka saarto oo aad isku soo karkariso iyo in aad sidaan ku dhigtaa oo muddo 24 saacadood ah uu yaalo bacdeen ay isku milmaan. Hadda aniga ma karkarinayo, dabna ma saarayo, sidaan ayaan sameynayaa. Waxaa laga yaabaa dabka inuu nuxurka ama faa'iidada aan ka rabo oo igala baxa ayaa laga yaabaa. Sidaan ayaan sameynayaa, waan daboolayaa. Hadda xilligan aan duubayo fiidiyowga waa maalin caawa oo dhan biyaha ayay la ooleysaa, meesheeda ayay ku jiraysaa. Waa kana hadda sidaan ayuu noqday. Waa kaasaa wuu milmay. Waxa uu u ekaaday shaaha ayuu u ekaaday, midabka shaaha ayuu yeeshay ama biyihii kafee ayay noqdeen. Waa kaasaa sidaas ayay noqdeen. Dhagayaraha wuu jilcayaa. Xabad sawdada sidoo kale. Xulbadda waxa dhanba waxay noqonayaan wax jajabaya oo gacantaada aad ku jijibi kartid ayay noqonayaan. Dheecaankii ama faa'iidadii aad rabtayna sidaas ayay kaaga baxaysaa oo natiijada aad rabtay sidaas ayaad ku gaartay. Hadda aniga sidaan ayaan soo sameeyay. Adiga waa ku karkarsan kartaa ama sidaan ayaad u dhigan kartaa. Laakiin faa'iido ahaan sidaan ayaa kuu fiican. Haddii aad dabka iska saarto waxaa laga yaabaa inuu quality badnaay ama faa'iidadii badneed inuu kaala baxo ayaa laga yaabaa. Maasha Allah, alaabtaana ku dhaatinta looma heli karo. Aflaaqatada, agoolka, jajabka, tintaada haddii aysan dheeraanaynin. Waa kaasaa xulbadda hadda gacanta ayaad ku kala jibi kartaa. Xulbaddana waad aragtay marka hore waa wax adag oo dhagaxa camal ah. Haddana sidaas ayay noqotay. Xitaa ayaga iskama daadin doono. Fiidiyow kale ayaan ka samayn doonaa aniga oo wax kale u isticmaalaya iyadana. Maasha Allah, waa kana biyihii weelkan yar ayaan kusoo buufsaday. Waxaad samaynaysaa tintaada intaad kala sheexayso oo qayb aad u kala xirxirto ama aad u kala duuduubto ayaad salka hoose uga soo buufinaysaa oo aad ku masaajeynaysaa. In muddo ahna aad ku haynaysaa. Bacdeen waxaad xiranaysaa bacda qubayska loo xirto oo kale ama waxyaabaha markaa timaha marsatid oo kale ayaad xiranaysaa oo aad ku haynaysaa oo in muddo ah ayaad ku joogaysaa. Sababtoo ah laguma haysan karo oo laguma joogi karo.
tinta wuxuu ka dhigayaa wax dhegdheg ah camal uu samaynayaa. Markaas biyo caadi ayaa isaga dhaqi kartaa. Biyaha caadiga ah ayaad isaga dhaqaysaa. Wax saabuun waxyaabahaas ma isticmaalaysid. Isbuucii 2 mar haddii aad alaabta isticmaasho, timahaada maasha Allah tabaarakallah natiijo weyn ayaad ka arkaysaa. Timaha way kuu baxayaan, way kuu madoobaanayaan kalarkooda hadduu marka hore oo midabkooda hore ka hadho ama timahaada brown ay ahaayeen. Timo madow oo qurux badan oo baalweyn ay kuu noqonayaan. Tan kale jajabka wuu kaa ilaalinaa, afilaaqitada, cuncunka tinta. Haddii aad dadka madaxa xoqa aad tahay aad iyo aad ayay kuu caawinaysaa.